taariikhdu waa 29 Oktoobar 2025 goobtu waa Daarusalaam magaalada ganacsiga ee dalka Tanzania laakiin maalintan magaaladu way ololeysaa goobaha ganacsigu way wada xiran yihiin isu socod gaadiid ma jiro dhaqdhaqaaqyada ugu xooggan ee socda waa dibadbaxyo rabshado wata iyo askar dadka shacabka ah rasaas u adeegsanaysa si ay u kala cayriso wadada caanka ah ee loogu magac daray halyeegii reer South Africa Nelson Mandela bartamaha wadadaasi waxaa ku gubanaya gaari ay leeyihiin ciidamada booliska rabshaduhu cirka ay isku sii shareerayaan hawada oo dhan waxaa qariyay qiiq madow oo ka baxaya dab la qabadsiiyay guryo iyo xarumo shaqo kumanaan qof oo dhalinyaro u badan ayaa ku dhawaaqaya si wada jir ahna ugu celcelinaya hal eray kaasoo ah wuu dhamaaday waxaan rabnaa in dib loogu soo celiyo dalkeenii oo la xaday shacab caraysan ayaa xoog ku galay xarumo dawladeed waxaa la burburiyay saldhig ay boolisku ku shaqaynayeen waxaa la gubay gaadiidka dadweynaha dad badan ayaa waxyeello soo gaartay dhimasho iyo dhaawac waxaas ma ahan wax si kadis ah ku dhacay dhinaca kale waxaa dibadbax taageero ah sameynaya boqolaal ruux oo u ololeynaya in xilka ay iska sii hayso madaxweynaha dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Saamiya Suluuxu Xasan iyagana waxa ay ku celcelinayaan erayo ay ka mid yihiin waan duminaynaa derbi kasta oo horteennii laga dhiso xaalku aad ayuu u xun yahay Tanzania hadda ma ahan Tanzaniyadii shalay ee ku dayashada mudnayd meel kasta shacab caraysan iyo ciidamo ayaa buuxa duulimaadyadii caalamiga ahaa waa la joojiyay dowladaha qaarkood ayaa muwaadiniintoodii uga digaya in ay sii joogaan Tanzania shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Tanzania waxaa la faray in aysan dhismaha safaaradooda ka dhex bixin cidna ma qiyaasi karto inta ruux ay ilaa iyo hadda dhimatay ama la dilay qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa dhowr iyo 10 qof Amnesty International waxa ay leedahay ugu yaraan 100 qof ayaa la dilay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee lagu magacaabo Chadema waxa uu ku doodayaa in la dilay 700 oo ruux 350 kamid ah dadkaas in lagu dilay magaalada Daarusalaam in ka badan 200 oo kalena lagu dilay magaalada Wanza tirada inta soo hartayna lagu dilay deegaano kala duwan oo gudaha dalka ah dawladdu way ka aamustay wax tiro rasmi ahna ma sheegin xitaa si nuxur leh uma carabaabin in ugu yaraan ay rabshado dhaceen telefishinka qaranku waxa uu baahinayay warar ku saabsan in loo dareeray diiwaangelinta codaynta doorashada guud ee dalka wuxuu kaloo soo bandhigayay barwaaqo nidaam iyo horumar in lagu jiro dawladduna ay wado shaqo aad u qurxoon oo dalka iyo dadkaba waxtar u leh waa hal wadan oo kala ah laba wadan oo aad u kala duwan warbaahinta madaxa bannaan waxa ay baahinaysaa burbur iyo rabshado tii dawladduna nabad iyo baraare waa un hal Tanzania dalka sidaas u kala duwan ee looga kala sheekaynayo haddaba waxaan dhacaya sidee ku bilowdeen sidee ayay heerkan oo dhan ku soo gaareen maxayse yihiin natiijada laga filan karo muuqaalkan ayaanu ku faahfaahin doonaa taariikhda siyaasadeed ee dalka Tanzania nala soco halkan waa Italy Media aniguna waa Aways Xaaji Nuur Awaysaar maabkan kuu muuqda waa dalka Tanzania oo xilligan sheekadiisu ay miiska noo saaran tahay waxaa ku nool in ka badan 68 milyan oo ruux waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha roon bariga qaaradda Afrika waa mid ka mid ah dalalka farakutiriska ah ee ka badbaaday saameynta xun ee dagaalka qabow oo dunida saddexaad badankeedii aafeeyay waxay ku guuleysteen dhismaha jidka tareenada ee Uhuru iyada oo waliba dawladaha reer galbeedku ay ka diideen in ay ku caawiyaan maalgelinta dhismaha jidkaas waxay martigeliyeen halyeegii reer South Africa Nelson Mandela xilligii uu dalkiisii uga soo cararay cadaadis dartiis Tanzania dal marka si guud looga hadlayo caan ku ah oo lagu yaqaano xasilooni iyo nabadgelyo waa marka loo eego dalalka kale ee ku filka ah ee qaaradda ku yaala xasilooni jirtay oo soo taxnayd muddo 64 sano ah intii u dhaxaysay 1885 ilaa 1918 waxaa la dhihi jiray bariga Afrika ee Jarmalka sida magacaba ka muuqata waxaa haystay oo maamulayay gumeystiyada Jarmalka laakiin dagaalkii koowaad kadib waxaa kala wareegay Ingiriiska dhulkana waxaa loo bixiyay Tanganyika oo lagu sameeyay harada weyn ee Tanganyika sidaas oo ay tahayna dalka hadda loo yaqaan Tanzania waxa uu kala ahaa Tanganyika iyo jasiiradda Zanzibar
sagaalkii December sanadkii 1961 Tanganyika ayaa xornimadeedii ka qaadatay Ingiriiska 2 sano kadib oo ku beegan 10kii December 1963 Zanzibar ayaa iyadana xornimadeedii ka heshay isla gumaystii Ingiriiska. ayadoo aysan wax badanba ka soo wareegin madax banaanida Zanzibar ayaa waxaa dhulkaasi ka dhaqaaqay kacaan afgambiyey dowladii Curdunka ahayd ee jasiiradaasi ka jirtay. dowladda la afgambiyey waxa ay dhisneyd kaliya 31 maalmood. 12kii bishii January 1964 ayuuna dhacay afgambigii talada lagula wareegay. bishii Abriil isla sanadkaas 1964 kuwii horseedka ka ahaa kacaanka Zanzibar waxa ay go'aansadeen in ay la midoobaan Tanganyika. sidaas ayaana lagu dhisay Jamhuuriyadda Tanzania oo ay labada dhinacba ku midaysan yihiin. dhulka iyo dadka oo kaliya lama midayn, xitaa magaca ayaa si siman loo mideeyay. Tanganyika ayaa saddexda xaraf ee ugu horeeya laga soo qaaday, waxaana lagu kabay saddexda xaraf ee ugu horeeya ee Zanzibar. sidaasna Jamhuuriyadda cusub magaceedii waxa uu ku noqday Tanzania. Zanzibar markii ay la midoobaysay Tanganyika waxaa hogaaminayay Abeid Karume oo ahaa ninkii afgambiyey dowladii hanaqaadka ahayd ee jasiiradaasi ka jirtay. Tanganyikana waxaa hogaaminayay Julius Nyerere oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay gumaystaha kadib. halkaas marka la taagan yahay isla sanadkaas 1964 waxaa lagu heshiiyey in la qabto doorasho guud oo lagu midaysan yahay iyo in la qaato nidaamka jamhuuriga oo uu madaxweynuhu yahay hogaamiyaha dowladda, halkii uu markii hore ra'iisul wasaaruhu lahaa awoodda koowaad ee dowladda. doorashadii la qabtay waxaa ku soo baxay Julius Nyerere oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Tanzania. markii ay Zanzibar la midoobaysay Tanganyika, shacabka iyo siyaasiyiinta Zanzibar dhammaantood iskuma waafaqsanayn oo ma ahayn go'aan ay isku wada raacsan yihiin, mana ku wada qanacsanayn. midowgaas waxa uu ahaa arin siyaasad adag gashay oo uu muran badan ka dhashay. sababtoo ah wuxuu ahaa go'aan degdeg ah isla markaana qarsoodi ah. tusaale, heshiiska lagu midoobay oo loo yaqaanay Articles of Union waxaa si qarsoodi ah u saxiixay hogaamiyihii Tanganyika Julius Nyerere iyo hogaamiyihii Zanzibar Abeid Karume. heshiisku ma marin habraacyadii dimuqraadiyadeed ee dhabta ahaa. waxaa loo ansixiyey si boobsiis ahayd ayadoo aan codbixin dadweyne loo qaban. shacabka labada dhinacba, Tanganyika iyo Zanzibar, gaar ahaan Zanzibariyiinta. shacabka Zanzibar waxa ay ka welwelsanaayeen in dhulweynaha Tanganyika uu liqi doono ama ugu yaraan uu dabooli doono ahmiyadda dhulkooda, taasoo keenaysa in dowladda la dhisi doono ay noqoto mid dhinac ka raran. alxaasil, shacabkaasi xoog iyo qasab ayaa lagu maquuniyey. labadii dhinacna waxa ay ku midoobeen oo dhisteen dowlad lagu magacaabo Tanzania oo ah tan ku fadhisa baaxad ahaan dhul ballaaran oo cabirkiisu yahay 947,303 kiiloomitir. sanadkii 1967 waxaa la sameeyey axdigii Arusha, kaasoo madaxweyne Julius Nyerere uu ku soo bandhigay wax loogu yeeray falsafadda Ujamaa oo loola jeedo hanti wadaagga reer guuraaga. ujeedkiisuna uu ahaa in la dhiso bulsho siman oo uu iskaashi ka dhaxeeyo. isla waqtigaas waxaa la hirgeliyey nidaam hal xisbi ah, xisbiga CCM oo kaliya. xisbiga CCM asalkiisu waxa uu ka yimid laba xisbi oo la mideeyey, kuwaasi oo kala ah TANU oo ka jiray Tanzania ama Tanganyika iyo ASP oo ka dhisnaa Zanzibar. waxayna noqdeen hal xisbi oo aad u ballaaran, waxaana loo bixiyey magaca Chama cha Mapinduzi oo loo soo gaabiyo CCM. tan iyo waqtigaasi xisbiga Chama cha Mapinduzi ayaa talada hayay. waa mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu cimriga dheer qaaradda Afrika. waxa uu la kowsaday waqtina la qaatay 2 jiil ama 2 fac oo isku xiga. heer wuxuu gaaray in la dhaho CCM waa Tanzania, Tanzaniana waa CCM. falsafadii Ujamaa waxa ay Tanzania u horseeday 2 natiijo oo aad u kala duwan, isla markaana aan kala harin oo isku sidkan. natiijo togan oo ah in dalku uu helay kor u kac dhaqaale, fursado shaqo iyo waxbarasho. laakiin sidoo kale waxa uu yeeshay natiijo taban oo ah caburin siyaasadeed, maadaama tartanka siyaasadda loo xiray hal xisbi oo kaliya. waxaa la mamnuucay in uu xisbi kale shaqeeyo. waxaa madaxa looga istaagay siyaasiyiintii mucaaradka. waxaa afka la qabtay warbaahinta. waxaa gebi ahaanba bulshada guda iyo dibadba laga qariyey wax allaale
wixii dhaliilo ahaa, keliyana waxaa la baahiyey waxyaabaha ay dowladdu jeclaysanayso baahintooda. Marka aan soo koobno, dhimaalka uu yeeshay go'aanka falsafadda Ujamaa ee ay dowladdu qaaday waxa ay ahaayeen caburin siyaasadeed iyo in dadka runta laga qariyey. Julius Kambarage Nyerere oo ahaa madaxweynihii u horreeyay Tanzania waxa uu xilka u tartamay kuna guuleystay 4 jeer oo isku xigay. doorashadii 1965, tii 1970, tii 1975 iyo tii u dambeysay ee 1980. Sanadkii 1985 isaga oo muujinaya in uu yahay qof dimuqraadi ah, Julius Nyerere waxa uu sheegay in uu ka tanaasulay tartan dambe oo doorashada madaxnimo ah. Waqtigaas uu Nyerere madaxnimada ka tanaasulayo waxa uu ahaa xilli madaxda kale ee qaaradda Afrika ay xilka aad u malabsanayeen. Kii xilkiisii dhamaystay lagu kari la'aa in uu si nabad ah uga dego oo cid kaga habboon uu ku wareejiyo. Kan bannaanka joogana uu xoog ku raadinayay in uu kursiga ku qabsado. Alxaasil, Nyerere ayaa 1975 kursiga madaxnimo ee Tanzania si nabad ah uga degay, dalkiisana u qoray taariikh togan. Doorashadii waqtigaasi la qabtay waxaa ku soo baxay nin lagu magacaabo Ali Hassan Mwinyi oo noqday madaxweynihii labaad ee Tanzania Nyerere kadib. Mar allaale uu Nyerere xilka ka degay, barnaamijkiisii siyaasadeed ee Ujamaa ahaana waxa uu bilaabay in uu dumo. Markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay xulafadii galbeedka iyo kuwii Shuuciga, dowladaha deeq-bixiyaasha ah waxa ay cadaadis weyn saareen dalalkii uu ka jiray nidaamka halka xisbi oo kaliya si loo bilaabo isbedello dimuqraadi ah. Tanzania oo ka mid ahayd dalalka xisbiga kaliya uu ka jiro waxa ay u baahnayd in ay samayso isbedel dhaqaale oo ballaaran si ay u hirgeliso mashaariicyo horumarineed oo waaweyn. Sidaas darteed waxa ay dhaqaale weydiisatay sanduuqa lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka World Bank. Iyaguna waxa ay dowladda Tanzania ku xireen shuruudo ah in ay isku samayso dib u habayn siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Haddii kale ay waayi doonto deeqaha iyo kaalmada ay u baahan tahay. Carab waxay dhahdaa man laa yamlik quuta laa yamlik qaraarahu. Qofkii aan quudkiisii heli karin go'aankiisana isaga ma laha, yacni waa loo gaaraa. Sidaas darteed Tanzania way ku qasbanayd in ay meel mariso rabitaanka dowladaha iyo hay-adaha deeqaha bixiya. Sanadkii 1992, dowladda Tanzania oo ka jawaabaysa cadaadiska caalamiga ah iyo weliba kii gudaha uga imaanayay, waxa ay si rasmi ah u ogolaatay in dalka laga hirgeliyo nidaamka xisbiga badan multi-party system. Taas waxay ahayd tallaabo weyn oo soo afjartay 30kii sano ee uu xisbiga CCM keligii tartamo ka ahaa dalka. Sanadkii 1995 waxaa la qabtay doorashooyinkii ugu horreeyay ee ay ka qayb galeen xisbiyo badan. Laakiin mar kale waxaa ku guuleystay xisbigii CCM. Isbedel weyn ma jirin mar haddii xisbigii keligiis uu muddo 30 sano ah tartami jiray oo haddana isla isagii uun tartankii ku guuleystay. Laakiin guusha yarta ah ee la gaaray xilligaas waxay ahayd in ay dhasheen oo tartankana ku soo biireen xisbiyo mucaarad ah oo badan, weliba qaarkood xoogga saarayay arrimaha jasiiradda Zanzibar oo u ekayd meel la iska hilmaamay. Isbedeladaasi siyaasadeed ee ka dhashay Tanzania waxa ay si gaar ah u iftiimiyeen dhibaatadii aan weligeed xal ka helin lagana garaabin ee ka dhalatay midowga Tanganyika iyo Zanzibar. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Zanzibar, Civic United Front oo loo soo gaabiyo CUF oo hadda burburay, waxa uu ahaa mid awood badan ku leh jasiiradda. Waxay si adag u diidayeen sida uu u dhisan yahay midowga, iyaga oo ku doodayay Tanganyika in ay leexsatay awoodda dowladnimada ayna u baahan yihiin iyaga madax banaani dhab ah. Macnaha in ay noqdaan dowlad gaar ah oo la dhaho Jamhuuriyadda Zanzibar. Doorashooyinkii ismaamulka Zanzibar ee 1995, 2000, 2005 iyo 2010 ee ka dhacay gudaha jasiiradda Zanzibar waxaa lagu eedeeyay in aysan ahayn kuwo si hufan u dhacay. Waxaa la sheegay in ay ahaayeen doorashooyin ay faragelinaysay dowladda dhexe ee Tanzania, isla markaana ay la socdeen musuqmaasuq badan, caburin iyo rabshado. Tani waxa ay dhalisay kala qaybsanaan qoto dheer iyo isku dhacyo u dhaxeeya taageerayaasha CCM iyo kuwa mucaaradka ah. Jasiiraddu waxa ay noqotay meel aan xasilooni badan lahayn.
shacab badan ayaa dalkoodii ka cararay iyaga oo ka baxsanaya rabshadaha iyo xadgudubyada uga imaanaya ciidamada dowladda. muwaadiniinta Zanzibar ayaa dalal kala duwan u kala firxaday. qaar badan oo qaxootiga Zanzibar ka tirsan ayaa soo gaaray dalka Soomaaliya iyaga oo u soo doontay badqab iyo nolol, weliba xilli ay Soomaaliya ku jirto mid ka mid ah marxaladaheedii ugu adkaa: dagaallo sokeeye, abaaro iyo dambiyo ka dhashay xaaladahaas. marka halkaas ayaad ka qiyaasi kartaa culayska haystay bulshada Zanzibar iyaga oo laba daran mid ka doortay. waxa ay ka soo carareen dhibtii ka jirtay dhulkooda, waxayna doorteen Soomaaliya oo ay dhibaatooyin kale ka jireen. dabcan waxa la sahlanaatay dhibta Soomaaliya taala, sidaas ayayna dufcaddii ugu horeysay ku soo gaareen magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd Oktoobar 2001, inkastoo ay jirtay qaxooti kale oo 1964kii Soomaaliya soo gaaray. laga soo bilaabo 1995 ilaa 2015 waa muddo 20 sano ah. inkasta oo Tanzania uu ka jiro nidaamka xisbiyada badan oo si kor ah loo dhaho in tartanka loo siman yahay, haddana xisbiga CCM oo kaliya ayaa guuleysanayay, iyaga kaliya ayaa talada iska haystay. muddadaasi 20 sano ah waxaa madaxtooyada isaga dambeeyay Benjamin Mkapa oo ka talinayay 1995 ilaa 2005, waa muddo 10 sano ah. Jakaya Kikwete ayaa ku xigay oo isna sidaas si la mid ah muddo 10 sano ah ku fadhiyay kursiga madaxweynaha ee Tanzania, waa intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2015. bishii Oktoobar 2015 waxaa la doortay madaxweyne John Pombe Magufuli. Magufuli waxa uu ku yimid olole ballanqaadkiisu uu ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dardargelinta mashaariicda horumarinta. waxa uu xukunka bilaabay isaga oo haysta taageero shacab oo ballaaran. waxa ugu weyn oo ay shacabku ku taageerayeenna shakhsiyadiisii ma ahayn, waxay ahayd ballanqaadyadii quruxda badnaa ee uu dadka u sheegay. laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayay xaaladdu isku bedeshay. Magufuli waxa uu dhisay hoggaan la mid ah nidaamkii halka xisbi ee horey uga jiri jiray dalka, isaga oo si weyn u adkeeyay awoodiisa iyo tii xisbiga CCM ee uu ka tirsanaa. xisbiyadii mucaaradka oo uu ugu weyn yahay xisbiga Chadema waxaa loo diiday in ay qabtaan shirar dadweyne, isu imaad iyo kulamo waaweyn. waxaa la xiray inta badan hogaamiyaasha mucaaradka, waxaana la adkeeyay sharciyada saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah. doorashadii guud ee 2020 waxaa si ballaaran loo aaminsan yahay in ay ahayd tii ugu xumayd ee dalka ka dhacda tan iyo markii dib loo bilaabay nidaamka xisbiyada badan. waxaa jiray eedeymo waaweyn oo ku saabsan shakhsiyaad la xiray, codad la xaday iyo rabshado ka dhacay jasiiradda Zanzibar iyo qaybo kale oo Tanzania ka tirsan. mucaaradku waxa ay si cad u diideen natiijada doorashadaasi oo si weyn loogu murmay. laakiin Magufuli ma ahayn nin jixinjix yaqaana. qaylada shacabka, buuqa siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo baaqyada caalamiga ah midna dheg uma dhigin. wuu isdhaariyey, wuu is caleemo saaray, hawshiisii ayuuna iska watay. laakiin 2021 waxbaa isbedelay. Tanzanian President John Magufuli has died from a heart condition. March 17, 2021 waxaa si lama filaan ah looga warhelay fariin sheegaysa in madaxweyne John Magufuli uu geeriyooday. waxaa xilka la wareegtay ku-xigeenkiisii haweeneyda lagu magacaabo Samia Suluhu Hassan oo isla xisbiga CCM ka tirsan. waa madaxweynihii ugu horeeyay dumar ah ee dalka Tanzania ka talisa. Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. waa 19 March 2021 Samia Suluhu ayaa loo dhaarinayaa in ay noqoto madaxweynaha lixaad ee Tanzania. waxaa ka soo baxaya cod gariiraya oo oohin uu ku laran yahay. wejigeedana waxaa hareeyay shucuur aad u xoogan markii ay la wareegaysay xafiiska. markii ay talada la wareegtay, Samia Suluhu Hassan waxa ay bilowday wax loogu yeeray dib u heshiisiin. waxa ay fasaxday shirarkii iyo dibadbaxyadii la mamnuucay iyada ka hor, waxayna la kulantay oo la fariisatay hogaamiyaasha mucaaradka, waxayna ka wada niqaasheen habka ugu wanaagsan ee dowladnimada loo wadi karo. tani waxa ay rajo cusub gelisay shacabka oo u arkay in la helay dimuqraadiyadda dhabta ah ee dalka Tanzania. Samia waxa ay bulshada hortoodii ka ballan qaaday in ay isbedel hor leh u horseedi doonto Tanzania. isbedelkii way ka dhabaysay, laakiin ma noqon isbedel la mahdiyo.
mana ahayn isbeddelkii ay bulshadu ka sugaysay. iyadu waxa ay ballan qaaday in ay wax ka beddel ku samayn doonto dastuurka oo ay ku jiraan qodobo badan oo lagu muransan yahay, in ay fulin doonto mashaariicyo waaweyn oo waxtar u leh dalka iyo dadka, iyo in ay shaqo abuur xoog leh u samayn doonto dhalinyarada, iyada oo sidoo kalena horumarin doonta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. laakiin taas wax ka duwan ayaa dhacay. bartamihii 2023 wax aysan dadku filanaynin ayaa soo ifbaxay. xeerarkii Magufuli ee ku dhisnaa caburinta, maquuninta iyo jujuubka sidii ay ahaayeen ayay iyadu ka sii adkaysay. saxaafadii waxaa laga sii qaaday madax banaanidii yareyd ee ay ku shaqaynayeen. mucaaradkii waxaa laga dhigay kuwo shirqool lala beegsado iyo qaar xabsiyada lagu guro. waxay isku shaandhayn ku samaysay golaha xukuumadda. haddana mar kale ayay isku shaandhaysay. haddana mar kale iyo mar kale ilaa 2024 afar jeer oo isku xigay ayay xukuumadda isku shaandhayn ku samaysay. kaliya waxa ay ka ahayd in ay sii adkaysato awoodda ay ku haysato talada dalka. waxa ay xabad xabad u socday isla markaana shaqooyinkii ka cayrisay siyaasiyiintii xilalka ka hayay dowladda ay u arkaysay in ay talada kula loolami karaan. ugu dambeyn Agosto 2024 waxa ay shaqada ka erisay wasiiradii arrimaha dibadda iyo warfaafinta, kuwaas oo u ololeynayay in la sameeyo furfurnaan siyaasadeed oo dhab ah. booliska waxa ay fartay in ay mamnuucaan kulamada ay siyaasiyiinta mucaaradku yeelanayaan. waxa la kala eriyay shacab dareenkoodii dibadbax ku muujinayay. sagaal iyo 20 Oktoobar 2025 subax xafiisyada dowladda ay furan yihiin, saldhigyadu ay shaqooyinkoodii ku jiraan, waxaa la soo shaaciyay magacyada 16 murashax oo la sheegay in ay yihiin kuwa Saamiya Suluuxu kula tartami doona doorashada soo socota. 16kaasi murashax magacyadoodii ayaa lagu qoray warqadda codbixinta. boorar lagu sawiray wajiyada dadkaas iyo halkudhigyo lagu dul qoray ayaa waxaa lagu dhajiyay derbiyada xaafadaha, gaadiidka iyo goobaha caamka ah. laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay dadka halkaasi lagu soo bandhigay ee la sheegay in ay murashaxiin yihiin midkoodna lagama soo sharixin xisbiyada dalka ka dhisan. dadku iyaga oo yaaban waxa ay isweydiinayeen siyaasiyiintan cusub xagee ka yimaadeen. sidoo kale aaway xisbigii mucaaradka ee ugu weynaa, xisbiga Chadema. cid su'aalahaasi jawaab u haysa ma jirto, maxaa yeelay waxba kala ma socdaan sida ay dowladdu wax u wado. kaliya waxa ay dareemayaan in wax isdabamarin ay jirto. maxay ka qaban karaan? waxba aan ka ahayn in ay dibadbax sameeyaan si ay dareenkoodii u muujiyaan. laakiin maxaa dhacay? Saamiya waxa ay adeegsatay nidaamka garsoorka iyo sharciyada adag si ay u aamusiso shacabka isla markaana u burburiso isku dayga siyaasadeed ee mucaaradka. eedaynta ugu culus ee loo adeegsaday mucaaradka waa in ay ku kaceen khiyaano qaran. wax sahlan ma aha. hogaamiyaha caanka ah ee mucaaradka Tundu Lissu oo la filayay in uu noqdo murashaxa ugu weyn ee Saamiya la tartami doona ayaa la xiray. waxaana lagu soo oogay dacwad khiyaano qaran ah taasoo ka hor istaagtay in uu u tartamo doorashadii madaxnimo ee 2025. hogaamiyaal kale oo uu ka mid yahay Luhaga Mpina oo ka tirsan xisbiga ACT Wazalendo ayaa laga reebay tartankii doorashada iyada oo loo adeegsaday cillado farsamo iyo dhaleecayn siyaasadeed. iyada oo sidaas foolxumada badan loogu muransan yahay qabanqaabada iyo diyaargarowga doorashada ayay Saamiya qabsatay doorasho ay ka maqan yihiin xisbiyadii kale ee ugu tunka weynaa. isla markiina waxaa lagu dhawaaqay in doorashada ay iyadu ku guuleysatay weliba 97.6% codadka. waxay ahayd natiijo cid walba ka fajicisay. hogaamiyaasha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah waxa ay si adag u diideen natiijada, iyaga oo ku tilmaamay in ay ahayd been abuurkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi Tanzania. African Union iyo ururada kale ee goobjoogayaalka ka ahaa doorashada iyaguna waxa ay sheegeen in doorashadu aysan buuxin shuruudihii heer gobol iyo kuwa caalamiga ah intaba. dibadbaxyo rabshado wata oo natiijada doorashada looga soo horjeedo ayaa dalkii ka bilowday. rabshadaha oo Dar es Salaam ka bilowday 29 Oktoobar sanadka 2025 waxa ay si degdeg ah ugu faafeen magaalooyinka kale ee waaweyn, gaar ahaan Wanza iyo Arusha.
tirada rasmiga ah ee ku dhimatay rabshadahaas dowladdu way ka aamustay, laakiin eedeymaha mucaaradka iyo warbixinada ururada xuquuqda aadanaha ayaa ah kuwo argagax leh. qaramada midoobay iyadu waxa ay sheegtay in dhowr iyo 10 ruux oo kaliya la dilay. Amnesty International waxa ay xaqiijisay in la dilay ugu yaraan 100 qof, halka xisbiga Chadema uu sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso 700 ilaa 1000 qof, kuwaasi oo si ula kac ah loo toogtay. kumanaan qof oo dibadbaxayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xisbiga Chadema ayaa la xiray, waxaana lagu soo oogay eedeymo culculus oo u dhigma khiyaano qaran. haddaba su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayo waxa ay tahay, waqtiga kan xiga Tanzania maxaa ka dhici kara? xaaladdu sidee noqon doontaa? dalkuse sidee u ekaan doonaa? intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa mowduucan tan iyo mowduuca xiga oo aanu soo diyaarin doono. sidaas iyo nabadgelyo, amaana allah. halkan waa Itaal Media, magacayguna waa Aways Xaaji Nuur, Aways Ar. nabadey.